asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa qodobo dhowr oo ku saabsan dunida kubadda cagta haddii aad nagu cusubtaa daawade fadlan subscribe noo saar sii sheergare saxiibadiina la wadaaga dhammaantiinba like nagu dhiirigeliya aad bad ugu mahadsantiisi aad ugu xirantiin barteena nadiga kubadda cagta Manchester United shalaytoor waxay ku guuleysatay in guul qaali ay gaarto inkastoo markaa mashaakil ay la kulmeen isla markaana darkiisan kooxda kubadda cagta United shalaytoor waxaanu ka aragnay United inay haysato xidigo cajiiba xidigo muwaahib leh haddana ay dhibaatoonayso marka la eego mar walba Ten Hag uu isagu hadlo wuxuu ku celceliyaa in United ay u baahan tahay xidigo quality leh in United xidigahan kaliya aysan ku ciyaari karin in United xidig kasta la isu soo iibiyo micno badan aysan u sameeyeen laakiin United ay u baahan tahay xidigo jawdo iyo quality leh isla markaana kooxda meel sare geyn karaya sidaas daraadeed waa sababta uu raadinayo Dion waa sababta uu raadinayo xidigo kale oo lamid ah oo isagu doonayo safkiisa inuu geeyo oo kamid yahay Declan Rice sidoo kale nadiga kubadda cagta United qiimaha ugu fadhiyo Casemiro waa darkiisa markaasi yani 6 dhibic bay qaadanaa hubaal kulankii hore way badin lahayn haddii isagu joogi lahaa sababtoo ah mar walba qadka dhexe waxa uu isagu ka badbaadinayaa fursado halis ah marka uu kubada joojiyana kooxda kale way macnaha iskuma xirna way kala daadsantaa darkiisa mid xidigaha dhamaantood booskooda way ka soo kala tageen sidaas daraadeed rogaal celintu u fudaanaysa Man United counter attack aad ay ugu khatar badan tahay laakiin meeshan hadda waxa joogan in la yiraahdo Fred oo isagu inuu weerar joogo inuu difaac joogo inuu yaadan kala garanay meesha u baasayo kan adiga kula jiray kan ka soo horjeedaba marka waa kaaga khatar badan yahay markaas isagu kan waxa waaye Liverpool Alisson oo dhaayaan maqlay inta kuwa naga soo horjeeda aan la gaar anaga ka khatar badan oo qaladaadkan galin buu ka hadlay waa dhabtii way meel kale ma ka raadinaysa marka laakiin haddana Garnacho laacib cajiib iyagu haysta isla markaana la amaanayo wiilka mustaqbal weyn buu ku leeyahay runtii United haddii xafidatan wax weyn bay marka tari doontaa waliba sanadaha soo aadan ku guuleysigooda horyaalka aad buu uga caawin doonaa maxaa yeelay anugu waa koraya aad bayna muhiim ugu tahay United inay haysto xal kala duwan oo kaydka uga soo kacay sidoo kale Sabitzer waan arki doonaa marka uu isagu yimaado Casemiro ayuu heli doonaa imtixaanka ama markaas waqtigiisa saxda lagu qiimeynayo laakiin hadda ma waqtigan inay guuleysto United kulanka Manchester United Leeds la ciyaarta aad buu muhiim u ah sababtoo ah kulanka soo aadan waxay la ciyaari doontaa koox cajiiba xaalad nafsiyadeed oo aad u fiican bayna ka qaadi doonaa dabcan kulan lagu raaxaysto baan daawan doonaa waan arki doonaa habeenka ilaa hadduu qadaro waxa markaa ka soo baxa laakiin United in kulan kasta bandhig kasta kooba inay guuleystaan waa wax weyn waxa loo baahnaa markaas waxay ku tusinaysaa wadadeedu in markaasi ay si haysan karayaan markaan ay dadaali karayaan sida kelmadu macno u leedahay aad baa loo amaanaya runtii nadiga kubadda cagta Manchester United marka warkeedu waa ka haddii aanu aadno nadiga kubadda cagta Manchester City sheekooyinkii ugu cajiibsanaa waxa kamid ahaa shalaytoor way adkaaday marka Manchester City shalaytoor waxaad ka arkayseen waxay ahayd Manchester City oo iyadu marka unbelievable ahayd Manchester City oo xaalad wanaagsan iyadu ku jirtay Manchester City oo ka fiicneed markaad aragtay sida u diyaarsanaayeen anigu waxaan arkay Citydan in Arsenal waxay kala qabsan doonaa iska halkeeda laakiin hal mid oo aysan lahayn kulamadii ugu dambeeyay arkaysay yani City waxaad arki jirtay in xidigeedu ay dheregsan yihiin oo kale in xidigeedu baahi badan aysan qabin laakiin kulankii ugu dambeeyay xidig kasta mustawa wanaagsan buu isagu soo bandhigay macnaha waa falcelin ama reaction ka dhashay markii la yiri waxba lagu tuhmaya iyo musuqmaasuq bay meel ku tagaan iyo waxay ku guuleysteen waa laga soo celinayaa Pep wuxuu awooday wax ay dareemayaan odayaasha Khaldoon Mubarak iyo Nasir iyo odagii kale Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyani raggii kale qolka uu la fadhiyay sare maamulka inuu u gudbiyo laacibiinta wuxuu gartay markaasi qaabka ugu wanaagsan ee loo gudbin karo isla markaana waxa dareemaysan xidiguhu inay gaartay sheekada dhabta heer taageerayaashu iyagu ay soo qaataan investigate kalmada wanaagsan oo kale iyagu ay ku soo qortay isla markaana waxaas baar ay leeyihiin yani nadiga kubadda cagta Manchester City falcelintii ka dhalatay bay aad markaasi sidoo kale waxay awoodeen xidiguhu in si wanaagsan garoon gudihiisa ugu jawaabaan hadalka uu ku hadlo markaad fiirisid xidig kasta fiiri wuxuu ku leeyahay Arsenal oo dhibceed oo ka qaadan doona Beba soo baxay wuxuu ku leeyahay anagu isku duwanaysa markaan waxaan doonaynaa aniga kooxda dhabar kama tooganayo City waxay rabtaa dhibca inay ka duubato Arsenal yani Arsenal cadaadis ku kordhay waa sax laakiin waxay sameynayso kooxdan waa wax cajiib ah runtii kulankan waxay ka sameysay ma joogteen doontaa mise waa shay ka kale laakiin shalaytoole
haddii kulanka soo aadan sidaas marka ay ku dhamaato 3 kama yaraan doonto natiijada looga adkaanay Arsenal sababtoo ah arintan ku dhacday waxay keentay in falcelin cajiib iyadoo ay markaa sameeyaan nadiga kubadda cagta ee Real Madrid waxaan shalay tolo ka sheekeynay qiimaha marka laacib kasta uu ciyaaraya sababta markaas sanadaha xiriirka iyagu ay soo guuleysanayaan koobabka waaweyn yani sanadaha soo aadan waa laga yaabaa waxyaabo badan laga hadlo laakiin shabakada Marca waxay ka waramaysaa Federico Valverde markasta uu xaadir yahay kooxda kubadda cagta Real Madrid waxa la dhigi karayaa way caafimaad qabtaa baa leeyahay kooxda markay ku jirto xaaladan wanaagsanayn waxaad arkaysaa in wiilkan isagu soo xaadirayo isla markaana mashaakil badan oo kooxda ay qabtay uu awoodo inuu xalliyo hadda waxaa la tilmaamayaa laacibkan isagu doorkiisa box to box mushkiladda qad ka dhexe ka jirta sida uu cilaajinayo dhibaatooyinka kooxda haysta sida markaas isagu daboolayo waxa leeyahay waa laacib unbelievable oo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay heshay waliba qiimaha ku heshay wada ogeedeen oo kooxda Real Uruguay markii laga keenay akademiyada lagu daray kadib Zidane soo bixidiisii waliba markaa wiilkaas sida looga yaabay waxa laacib markaas qiimo badan aan ugu fadhin Madrid laakiin haddana garatay waqtiga siday u keeni lahayd isla markaana u horumarin lahayd waxaad arkaysaa laacib cajiib ah dhawaan isagu 12 gool buu soo gaaray wuxuu ku tusinaysaa horumarka laacibkan isagu horumarayo ninkii markaas Carlito waa la amaanaya xidiga hadda markaas kooxda ka maqan dhibaatooyinka haysta si kaligii maaha oo isagu wuxuu awooday Vinicius waxa ugu fiican u leeyahay inuu ku siiyo uu horumariyo hadda xilaareedkan wuxuu horumariyay ninkii Federico Valverde kooxda in ka badan hal xidig haysta horumarsan yani nadiga kubadda cagta Real Madrid isagu wax badan lagama sheegi marka laguma eedeyn karo mushkiladda taagan waana la amaanaya wiilka Federico Valverde wiilka cajiibka shaqada quruxda badan u qabanaya Malaki shabakada L'Equipe wadankaasi Faransiiska waxay qarxisay war weyn oo ku aadan nadiga kubadda cagta PSG xaaladeeda PSG xaaladda ay ku jirto waxa leeyahay ehel ugama dhigayso kooxda meel dheer iyagu inay gaaraan ehel ugama dhigayso kooxdan markaasi mushakilada haysta inay xaliyaan ehel ugama dhigayso kooxdan iyagu markaasi mushkiladda hadda haysata kulanka soo aadan inay ku xalin karaan looma maleynayo sababtoo mushkiladu min garoon ilaa iyo xafiis buu dhex taalaaba leeyahay Neymar waxa arkaysa markaasi in uu aflagaadeeyay saaxiibadiisa sida warbaahinta dalkaasi ee Faransiiska ay soo tabinayaan isla markaana waxa arkaysa si wanaagsan uu soo la dhaqmin aadna uga carooday marka waxa arkaysa xidigu qaar kale ay ku tuumayaan guul darrada maamulka sare heer mushkiladu ay gaartay isla markaana qolkooda xafiisyada aan wax wanaagsan lagu sheegayn yani tani kulanka Bavaria haday badiso ay reebto kooxda kubadda cagta PSG labada kulan waxay noqon doontaa istiqaalad ama ceyrin waqtigeeda ka soo hormari doonta hadii la filayo xiliyaareedka waxaad maqli doontaan kulanka maalinta marka kooxda la reebo Galtier iyo tiimkiisa ee Campos iyo in la fiijiyo ama ugu yaraan Galtier noqoto neefka ugu weyn ee loo gowracayo markaas iyaduna waan arki doonaa laakiin wax wanaagsan inay sameeyaan ma muuqanayso baa ama ugu yaraan xidigaha haystaan way awoodi laayihiin inay fahmaan isla markaana natiijo positive ay ka keenaan shalay tur waxaan akhrinayay shabakada Le Parisien oo tilmaamaysa in Kylian Mbappe ugu yaraan liiska lagu soo dari doono kulanka Bavaria wararkaas baa la qorayay oo xitaa barnaamijka maxaa cusub aad ku daawateen laakiin ilaa hadda ma cadda ninkan xitaa hadii lagu soo darin oo ciyaari kareen kale oo Galtier waaba u cadeeyay wuxuu yiri anigu ninkan ma hubo inuu markaasi ciyaarayo ma ciyaarayo markaas laakiin Messi waxa la rajeynayaa isagu diyaar inuu noqdo isla markaana qayb uu ka noqdo xidigaha kooxda u ciyaari doona runtii iyaduna waan arki doonaa oo wax badan baan sugi doonaa runtii kulankaasi cajiibka ma fasalana kulan lagu raaxaysto habeenka caawa kale marka daawatid kulanka habeenka ma daawanaysa Bavaria iyo Bayer habeenka ku siciga hadan waxa daawanaysa kulan kale unbelievable markaas yani sheekadu waa cajiib ah la kariya nadiga kubadda cagta Barcelona xalaytooda waxa daragteen habeen taariikhi iyagu inay qaateen isla markaana Barcelona waa cajiib Barcelona waa koox ka yaabinaysa Barcelona waa koox unbelievable Barcelona waa koox ku indha daraandarinaysa runtii markaad aragtid waxyaabaha ay sameeyaan waxay kula dhaqmayaan sida bahalo oo kale markaad ka hortagaysid wax dareemaysaa kooxdan inay tahay koox ugu yaraan kubadeeda aad u baahan tahay shaah inaad shubatid aad iska daawatid oo ku raaxaysanaysid xitaa mucaaradadaad ku tahay maxay bandhiga quruxda badan ee kooxda soo bandhigayso ma aragtay Barcelona adigu sida u wanaagsanaatay Xavi Hernandez 12 kulan oo xiriira darkaysa dhammaan tartamadooda inuu guuleysanayo waan ku fayn
wax cajiib iyaduna Pep Guardiola ugu dambeysay rikoorka macallin cusub bay dhalaysaa markaas laacib cadiim hadduu ahaa macallin cajiib uu isagu noqonayaa markaas laacib weyn haddii uu ahaa macallin cajiib uu isagu markaasi noqonayaa Xavi Hernandez midda kood waxyaabaha uu ku guuleystay waxaa ka mid ah Barcelona markay banaanka joogtay inay dhibaatooyin jirtay kulamada banaanka aad bay ugu liiteen ama Girona ha la ciyaareen ama Villarreal ha la ciyaareen ama markaasi Juventus ha la ciyaareen ama PSG ha la ciyaareen banaanka markay joogaan galab bay ahaayeen aad bay u dhibaatooyin jireen waxaad arkaysaa kooxdu hadda in difaacinay tahay mid is haysata adag aan la loodin karin oo ay adag tahay shabaqooda inay soo taabatay yani mararka qaarkii qatar markay dareemaan ma garan karaysid laacibka halka uu kaaga imanayo saaruuq socoto oo la yiraahdo Araujo baa markaasi ku adiga iyo macal kubadaadi kula tagaysa ku kale ka daran oo la yiraahdo Kondi meel ka yimid ma garan karta adiga macal kubadii waa ku qaadanaya Baldi laacib difaaciyan iyo walow weerar ahaanba cajiib isla markaana ay adag tahay inaad markaa joojiso waa saaruuq socota markaa Christensen waa meesha waxidiga lagu joogo isla markaana meesha u xiran tahay waa ninka markaa meesha haystaba waxaad arkaysaa koox dhinac kasta cajiibka ah koox ku indha daraandarinaysa marka la eego ma aragta markay kubadda lumiso Barcelona waa wax kale oo wanaagsan yani Kessie iyo waliba ninkii ahaa Dion shilaytool inay qaybtii hore kaligood kubado dhowr iyo 10 ay soo celiyaan labadooda kaliya waan ka hadlayaa oo waxa cajiib oo indha daraandar leh waqtiyadii ugu dambeeyay aad u weysnayd Barcelona ma fiirisay qaabka markaas cajiibka Baldi markuu weeraro isagu isku dayay ninkii ah Kessie inuu daboolo gadaashiisa isla markaana khatar uusan la kulmin oo wax kale oo ku indha daraandarinay Barshadaan arkay anigu Barsha mid la joojin karo ma muuqanayso waxaad arkaysaa Barsha oo dhameystiran Barsha oo dhinac kasta ku xoogan Barsha oo rabta inay burburiso rikoorkii 15 gool ee xiliyaareed dhan laga dhaliyay Chelsea 2005-2006 sababtoo markaas hadda waxa laga dhaliyay 7 saddex ka mid ah Madrid baa ka dhalisay markaas hal kulan inta kale waxay ahayd markaas waxa oo hal laga dhaliyay marka 15 gool xiliyaareedka 17 kulan baa u harsameelaha way adkaanaysaa in shabaqooda la soo taabto Hubal waa koox cajiib runtii oo ku indha daraandarinaysa sida kelmadu macno u leedahay